duqa degmada Buulobarti ee gobolka Hiiraan Cismaan Geedi oo la hadlay idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Itoobiya ay soo gaareen magaalada Buulobarti asagoo sheegay in soo gaaray raashin ee gobolada dalka u soo dirtay wasaaradda arrimaha gudaha ee qayb ka mid ah u sii gudbin doonaan magaalooyinka Ceelbuur iyo Maxaas. Arrinkaas waa jira ciidamadaas waa soo gaareen raashinka gudbinayo marka wayna la joogaan hadii la yiraahdo waqtiyada wayna gudbin doonaan ciidamada Itoobiya misoon ka qaybta way ciidamada Buulobarti ku sugan yihiin kallay waa inta la soo gaartay ayaa qayb loo gudbinaa Maxaas iyo Ceelbuur وكاس غادي كاساسي غير هذه ما wasaaradda arrimaha gudaha uu taragash marka sidoo soo qorsheeyay baan anagu soo qorsheeyay si kala gudbinayna sidoo kale duqa degmada Buulobarti Cismaan Geedi ayaa sheegay in raashinka lagu talagalay dadka ay ugu qaybin doonaan sida dadka uu kala baahi badan yihiin asagoo sheegay in muddo hal sano ah ay go'doon ahayd magaalada Buulobarti ayna 8 gaari oo raashin dadku baahidooda wada dabooli karin ما ساعدنا نقول دوام قريب دونا maanta shalowbana soo gaaray soo dhaweyn ciidamadaas ay dejintu aan ku jirnay marka hadii ay iraado mari way ka bilowdaa qayb doona dadka u kala leeyahay waa ka soo kala leeyahay mudnaanta u kala sii doona walaal waa garan kartaa dawaa aniga naftaan waa garan kartaa muddo hal sano magaalo go'toosareed sideed gaari waxa hadda ka garan waa yartahay laakiin waa dhig joojin sidoo dadku kala dareeyaan oo xulay doona raashinkan gargaarka ah ee ciidamada Itoobiya ay ka qaadayaan degmada Buulobarti ayaa waxa halkaasi xoog ku gaarsiiyay ciidamada dawladda Soomaaliya.